مولد كالنبي قال سبحان الله حديث النبتقر يكركيسا يا مانت لغا حسي حرمت قبل قبل يوصل دوري لغا حسي قود عاق مغالد قبل حرمت قبل اي مناسبتنا هاي مناسبه زياد سلام لسو قسمي واي كسو قيب كلام علماء aad u tiro badan oo culimadiinka ugu waaweyn gobolka qibl ay guud ahaan waxa halkaas lagu soo bandhigay sirooyinka nabiga maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa qasaayda lagu amaanayo nabiga subhanahu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa sidoo kale waxa halkaas iyagu hadallo kooban ka jeediyay sheekh maxamed cilmi qaali iyo sheekh cabdilatiif iyo sheekh maxamed dabood sheekh cabdiraxmaan iyo sheekh maxamed ciiga iyo waliba sheekh maxamed oo dhamaantood baarkaasi ku soo bandhigay ahmiyadda ay maalintan leedahay ee lagu weyneeyo dhalashada nabiga subhanahu isla markaasina sidoo kale ku tilmaamay in shacbigan gobolka qibl ay yihiin kuwa iyagu had iyo jeer soo dhaweeya xuska mawlidka nabiga rasuulka fadaaisha ilaahay siiyey iyo mucjisaadka ilaahay siiyey wax la koobi karo maaha halkan haddaba waqtiga inoo gaabana ugiir waxaan ka sheegi doonaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam fadaaisha ilaahay siiyey ayaan ka sheegi doonaa waa maalin yoomu faraxa rasuulku nicmo weyn buu ahaa ilaahay soo diray caalamka dhammaantii ayuu nicmo u ahaa sidoo kale waxaa halkaasi gabagabadii lagu soo bandhigay qasaa'id qiimo badan leh oo guud ahaanba habeenkii xalay ahayd magaalada qibl ku bariisatay iyo guud ahaanba degmooyinka karkare ee yimaada gobolka qibl kanalka walba ayaa laga xusaa dhalashada nabiga guud ahaanba gobolka qibl iyo degmooyinka kale ee yimaada waa nimcadeeda si iyo qarabka qibl